بسم الله الرحمن الرحيم waxaan caawa madashan qaaliga ah aan isugu nimi oo aan ku soo dhaweynayno walaasheena qaaliga ah Sucaad Cabdullaahi Galow oo ahayd ciyaaryahanadii barisamaadkii xulka qaranka Soomaaliyeed iyo kooxdii horseed oo caawa ay wada dhan yihiin dhammaan bahdii sportiga reer London oo yar iyo weyn gabdhihii reer London ama UK aan iraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan caawa iskugu nimi halka xafladda lagu sameeyay ay noo sameeyeen guddigii soo qaamiyay ciyaaraha cashadan macaan lagu talagalay ciyaartooy hore Sucaad Cabdullaahi marna ay u ciyaareysay qaranka marna horseed yaa loogu talagalay waxaan marka anigoo ku hadlayo magaca saaxiibaday guddiga Olombikada Soomaaliyeed aan ahayna wakiilka Olombikada Soomaaliyeed dalka Talyaaniga dhinaceygana uu fadhiyo safiirka amba safiirka wareegaystay Olombikada Soomaaliyeed Abdideeg الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال مروين السلام كدب عاوة حفلتنا قروح بدل لي عشرة وحان بهوين تسبورتيغا UK انت مقن يا انت جوجت بقى انغو كوكيل يا أولمبيكada Soomaaliyeed waxaan rabaa in aan ku soo dhaweyno barisamaadkii ciyaartooyda ahayd Sucaad Cabdullaahi horseed u dheeli jirtay qaranka Soomaaliyeed xulkana kamid ahayd aniga qaasatan asxaab aan wada ahayn inkastoo aan ka weynahay waxaan rabaa Sucaad 4 sano ka hor ciyaarihii ay furaysa isugu keen dambeysay muddo dheer anagoo is arkin haddana waa kala maqneen ilaahay baa caawa halkan nagu kulmiyay inta ka soo qayb gashay anoo magacooda ku hadlay inta maqan Sucaad soo dhawow ayaan ku leenahay intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciyaartooydii hore suxufiyiinta sportiga dumar iyo ragba inta soo qaban qaabisay ugu horeeyo agaasimaha sportiga ee dhalinyarada ee Puntland Tigana waxaan rabaa in aan halkan fursaddan oo ka faa'iideysanayo u mahad celiyo bahda tafatirayaasha sportiga ee Universal oo mar walbaba sportiga garab taagan Zola iyo Biriq iyo saaxiibayaalkood la soo diyaariyaan waxaan kaloo rabaa fursaddan aan ka faa'iideysanayo in aan u mahad celiyo madaxda Olombikada Soomaaliyeed iyo xiriiradooda muddadii gaabneed howlihii ay ku qabteen dibadda iyo gudaha waxaan leeyahay hala garab istaago sportiga Soomaaliyeed ha noolaado kor ha loo qaado cid walowba wixii aad ka geysan karto in aad ka geysato Sucaad soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba gabar aan jecelnahay oo nagu weynaa tahay welcome soo dhawow caawa walaasheen qaali ah Sucaad Cabdullaahi Galow inaan ku soo dhaweyna halkaan iskugu nimid midda labaad wax badan baarna inaan u sameeyno ayadaan kari weyna waqtigoo yar iyo ayadii aan kari weyna iskugu keenso noqotay Sucaad waa gabar aan jecelnahay waa sportigis qaranka Sucaad waxaan ku leenahay welcome to London waxaan ku soo dhaweynaynaa maaha markii ugu horeysay walaasheen Sucaad Maxamed ku soo dhawow London waxaan filayaa kulliba odayaashu way ka hadleen marka aniga waxaan rabaa Sucaad inaan u sheego waxaan ka mid ahaa raggii difoosayaasha oo ahaa
waaga ciyaari jirtay sucaad way yareed oo qof da'yar ahayd macnaha markii sportiga ay soo bilaaweysay waxaan ku dhiirigeliyey walaasheed safiya oo runtii ahayd ayadana macnaha ciyaartooy basketballka sidaa la soconno sucaad waxay u soo ciyaartay naadiga horseed oo runtiina ay ka mid ahayd gabdhaha ugu firfircoonaa naadiga horseed kadibna iyadoo maaragtay da'yar ayay waxay ku soo birtay maxaa xulka qaranka kulligeen waa la soconaa ciyaarihii maaragtay ay uga qayb gashay sucaad markii waddanka ay ka soo tagtay ciyaartii basketballka ahayd hore ayay u sii waday oo waxay u ciyaaraysay jaamacad maaragtay ka tirsan macallin Mareykanka waan qoftii ugu horeysay oo East African ah oo ka ciyaarto ciyaaraha jaamacadda waqtigaas marka runtii haddaan nahay bahda sportiga khaasatan bahda kubadda kolayga waa u baahannahay in qof taariikh noocan oo kale ah mar kasta inaan xasuusanno runtii nasiib xumo sucaad waddankii wuu burburay ama dagaaladii kadib waddankii waa aragtay dhibaato badan baa maaragtay soo gaaray xaqiiqadan waxay ahayd qofka hadduu national teamka noo matela in mar kasta la xasuusto taariikhdiisna la qoro marka waxaan jeclaan lahaa dadka wax qora inay ka qoraan sportiga dadkii waddanka soo ciyaaray oo runtii magaca calanka Soomaaliya maaragtay meel macnaha wanaagsan geeyay insha Allah kulliba anaga markuu iloobayno sucaad insha Allah qof waxa ahayd xidig ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بهوينتا سبورتيجا لندن كنول عاو حاشرف ونوين إنه إن أنا كسر نوين إنه حفلة دان أنا كحسينه ولا شين إن سعاد عبد الله قالوا أو نقصوا قارتي ودن كمريكان كه سعاد وقبر ولا شين وعاد نوجود دير أنا قهدان مركي جوهر إنسانية أيضا إسكتين بين هانجرن بد إن هرسات askartu way soo ruqseeyeen marka waxaan u wareegay teamka hor badda meeshaasaan iska garaaci jirnay sucaad waxaan ku leeyahay walaal ku soo dhawow London adigoo in fact xusuus weyn nagu haya ama nagu leh ilaa iyo magaalada Soomaaliya ama Muqdisho intaas kaliya aniga awal ku koobnayna naqaan meel kale naqaan male marka waxaan ku leenahay walaal macaan ku soo dhawow adoo naga mudan midaan iyo mid ka weynba inaan aan ku sameyn lahayn haddana waqtigii baa cariir nagu noqdo sucaad mar walba iyadoo rash garaynaysa imaata iyadoo rash hourna way ku baxdaa marka insha Allah marka dambeeta ayaan waxaan sameyn doonaa xaflad weyn oo lagu xisi doono in fact dadkeena sportigii horeeto aan ku dhiirigelinayna ama aan ku soo dhaweynayno dadka yaryar ee hadda soo baxay inaad role model u noqono ama example in kasta aan cuslaane haddana waxaan ku leeyahay sucaad wili I think ina is haysanaan jecla bismillaahir rahmaanir rahiim aan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galno xafladan quruxda badan loogu talagalay caawa lagu cazumay Sucaad Cabdullaahi Galow oo noogu timid Mareykanka oo ah markii ugu horeysay inay timaado halkan aysan ahayn oo ah marar badan ay timid kulli baan waxaan ka xasuustaa waa markii labaad gabadhaas oo ah gabar aad iyo aad basketballka aad ugu fiicnay Soomaaliya oo ciyaari jirtay kooxda horseed qarankan uu soo ciyaartay runtii oo ah aad gabar firfircooneed waxaan aad iyo aad ugu xasuustaa ciyaarihii 4 sano ka hor ee 2010 oo la ururkeena sportiga ee kubadda cagta wiilish gabadhii ugu horeysay ee furtay ayada ahayd booniga bartilmaameedkaas runtii sucaad waxaan dhihi karnaa caawa dad sharaf iyo maamuus sportiga ku leh ayaa caawa kulli halkan inta fadhiya saa arkaysa waxaa jooga FIFA Africa waxaa jooga ambassadorka Olombikada wakiilka Olombikada ee Talyaaniga website-ka ciyaaraha ciyaartooy fara badan oo basketball iyo football gudoomiye ku-xigeenka mideynta waxaa jooga legend waxaa jooga balaaga jooga agaasimaha Puntland ee sportiga jooga wiilasha kulli ilkaas iyo dadkii aan ka tagayna waa kaasa kulliba iyo Saciid iyo waxa ii haray iyo kale yahay ay mawlid runtii aad iyo aad waxaan u mahad celinayaa iyo gabdhaha intaas oo dhan maanta joogta inkastoo Cabdinaasir hadda uu qoslo uu leeyahay odayga maanta si fiican u hadlay waxaan ku sheegayaa in baana uu kamid yahay dadka aad u yar aniga Diib Cabdi Jaamac iyo Maxamed Khaliif macallin waan jiray galaas foorkooda aad iyo aad ugu faraxsanahay maantana waa soo eegnaa marka runtii aad iyo aad u mahadsantiin sida kaliya ugu soo qayb gasheen xafladan quruxda badan leh waxaan rabnaa qof kasta waxba laga haraa haddii aan jaanis weelno anagu ka hadlaa magaca TV Universal faaqadaada ciyaaraha
wakiilna u ah inaan barnaamijka ka duubno si aan future-ka aan taariikhdeeda waxaan u helno haddii ilaahay insha Allah waa mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka ugu horeeya waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dadkii soo qaban qaabiyay xafladan sharafta badan had iyo goorna isku taxaluujiyay inay dadka isboortiga magaca ku leh ama taariikhda ku leh ay ku soo dhaweeyaan magaalada London ayagoo ka wakiila bahaweynta isboortiga London marka waxaan leenahay odayaashii ka soo shaqeeyay aad iyo aad ay u mahadsantihiin waxaan jeclahay inaan sidii dadka walaalaha ugu horeeyay aan soo dhaweyno walaashay Sucaad كله وحوي وعنكم فرح سنة صاحبك برقعة إنه دأدي سشكتي مركا وحوي أنا جو حكون جرنا أمالنا ضد كده فصاء هنجري ولو أنا نرسل جعلنا جيد فصاء هنجري مركا وحنا سعاد سودو حفلة داني متكم من رمضان تاسيد ولا عشان شكتي لكن وقت جو علينا أو قضيات إنتان نقطين سقوط ماضي لكن وحلو تصي كله وناجي كل جعل كل جوهايو مركا وحنا سودو وما سنتين السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan marka hore mahad celinayaa dadkii barnaamijkan ku soo dubaraday qaasatan walaalkii Tigana iyo Mustafari Black hadaan tiin dadkiina wastiga aad baan uga fiicantii sida loo abaabulo xafladaha hadaan intaan gudbo walaasheen muxuu ahay Sucaad Cabdullaahi waxaan filayaa isku waqti ahaan dadkii waqtigeedii ciyaar jiran kamid ahaa marka taariikhdeedii waa la soo koobay waxaan ku diray loo kaliya waxa ahayd hogaanka naadi walba wuxuu lahaa dad hogaamiyo hogaanka gabdhaha naadi horseed ida ahayd sida jeeyo kale mulku hogaaminaysay marka qof waxa ahayd basketballka taariikh fiican ku leh xulka qarankan afka warkaga jirto marka soo dhawaad walaashan assalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الحمد لله على نعمة الإسلام marka ugu horeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh wa ba'd waxa mahad uu gaara uu soo celinayaa madashan quruxda badan ragga ka soo shaqeeyay oo sidii caadiga ah walaalahay ugu horeeyay ay sheegeen oo bahda isboortiga reer South Hall madaxdooda oo har iyo habeen u taagan isboortiga horumarintiisa taariikhdana waa idin xusaysaa waa la ogyahay maalin walba sida uu soo dhaweeysan dadka isboortiga ayadoo uu hogaamiyay lajanka balaag walaashay Sucaad Cabdullaahi Galow ciyaartooy hore barisamaadkii deer kulay raggii la soo dheelay iyo raggii macallimiintu u ahaa iyo raggii ma aragtay yaqaan ayaa taariikhdeeda ka sheekeeyay magaaladan London waxa caado ku leenahay Sucaad qof kasto isboorti soo maro waa la soo dhaweeyaa waana la sii dhaweeyaa nasiib darada waqtigaada waa bar walba waxa la yiri waqtigaada waa cariiri orada nagu soo martaa waqti gaaban next time noo soo dheeray taariikhdaada looga sheekeeyo annaga aan uga faa'iideysano aan u baranno TV caalamiga Universal wuxuu ugu ballan qaaday in waraysi buuxo taariikhdaada ka sheekeeyay inaad samaysid run ahaantii waxaan ku leeyahay anoo kamid ah dadka odayaasha magaaladan magacoodana ku hadlahay inta maqan ee ku soo gaari weys cudurdaar ahaana ka cudurdaaray dhaqankii magaaladeena waan sameynay howlo badan jira waqtiga yaraa ku soo dhawo magaalada London qof waxa tahay qiimo leh isboortiga qiimo ku leh marka qof kasta oo qiimo isboortiga ku leh waan soo dhaweynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan marti sharaf waxaan mahad leh xafladan quruxda badan dhalinyaradii agaasintay uu number 1 ka ahaa Mustafari iyo Tigana iyo dhalinyarada bahda kale isboortiga nagu hareeraysan iyo gabdhaheena quruxda badan ayagana marti sharafta ay ka soo qayb galay waa mahadsantiin kulligeen Sucaad Cabdullaahi Galow waxay ahayd ciyaaryahanada heer qaran aad ay dadku u jecel yihiin ciyaar qurux badan noo soo bandhigi jirtay 1984 aniga waxaan ahaa dadka waaweynaa oo ka horeeyay ciyaaraha laakiin Sucaad ragii dadka nagu xigay ahayd 84 85 waa fiirsan jiray defoosana waa runtii gabdhaha horse asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan waa habeen farxadeed waa habeen xiiso badan Sucaad Cabdullaahi Galow inaan kugu soo dhaweyno London intaanan u guda gelin
erayada aan rabo inaan idhaahdo caawa waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay barnaamijkan oo wakhtigooda qaaliga u soo huray odayaasha seryaadi baaskid iyo kubadda cagtaba kulligiin aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa inaa caawa nagala qayb qaadataan dadka aad isugu hawlay inkastoo aan hawshaan wadaagno haddana mustaf suleymaan darwiish iyo lejenka iyo bahda isboortiga oo dhammi waa ka wada qayb qaateen in lagu soo dhoweeyo lagu arko jacayl ay dadkaaga ku qabaan habeenada ka mida anigoo waxaan ahaa difoose horseed baan ahaa cawiyo maalin istaadi muqdisho waxaan galay habeenada ka mida ciyaar baa socotay waxool iyo horseed inay ahayd hees baa saarnayd marka ma xasuusto fanaanka qaada waa hees caan ah oo wadaniya xidigaha dusheenna taan anigu doortay doonayo ii sheeg baa saarnayd marka laba nin oo iga horeeya isweydiiyo niyow xidigta ninkan ka hadlaaya maxay tahay horseed yaar sucaad waayo yiri marka sucaad ku soo dhawow London dadkaaga ku jecel oo difoosayaalna ku ahaa naadigaagana qaarkood ay ka tirsanaayeen waa ku soo dhaweynaya waxaan jeclaan lahayn inaad waqti noo hesho marka dambaad imanayso haddii aanu wada joogno inaanu kuu samayno habeen xiiso badan oo dadkuguna kugu xasuustaan laguguna soo dhaweeyo diib oo kale walaasha iyadana waa tixgelinaynaa walaal qaaliya waayo iyadana always nagala qayb gasha isboortiga gabdhihiina kale Faa'isa iyo Cadar iyo gabdhihiina kale aad u mahadsantihiin waa farxad inaan kula wadaagno habeenkan soo dhawow habeen wanaagsan aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin caaw waxaa halkan igu soo qasbay Sucaad Cabdullaahi Galow baa igu soo khasabtay ani sports waxa iigu dambeysay waagii xamar aanu joognay oo muxuu ahaa qarankii Soomaaliyeed uu jiray marka muxuu ahaa aad baan u xiisayn jiray waliba ani kolayga ma xiisayn jirin waxa xiisayn jiray in kubadda cagta calciumka baadroolka kale aan aad u xiisayn jiray Cabdullaahi Cuti mukhtaar Cuti baa xiisayn jiray marka madbacadana aad baan iyadan u xiisayn jiray marka muxuu ahaa habeen wanaagsan ku soo dhawow muxuu ahaa London waxaanan insha Allah next time markaad noo timaadina insha Allah adigoo laga qoray xusuus iyo muxuu ahaa book baan aad u jeclaan lahaa idinkana fariin baa in faraaya wiilashiina iyo raggiina ما شاء الله سبورتسku waa wax qaali ah waa wax bulshada isku keeni kara baarooyada London iyo UK oo dhan gaarsiiya dhalinyaradeenna siday uga badbaadaan crime ka kale taas aad iyo aad ina ugu dadaashin baa aad anagu u jeclaan u dareynaya waana mahadsantii salaam calaykum bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadweynaha sharafta leh ee reer London gaar ahaan sportska dhalinyarada dadka waaweyn madaxda gabdhaha reer London ee sharafta leh aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin xafladan sharafta badan ama quruxda badan ee aan weligay hore u arkin aad ii sameyseen runtii ilaa iyo sidii waddankeennii Soomaaliya ugu burburay waa markii iigu horeysay ee aan wareysi yeesho la iga qaado ama aan imaado waxaana caawa igu khasbay runtii dadkan aad iyo aad u qiimaha badan ahaa dadkii aanu isla soo kornay ama walaalayaashaydii aanu isku bahda ahayn isku family ahayn sportska ahaa ayaa igu khasbay maanta inaan soo istaago telefishinka hortiisa runtiina aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dadka waxaad wax isu tihiin wixii ku yaqaanay ama isla soo korteen waxaadna tihiin walaalahay waad ogtihiin waddankeennii aynu ku soo kornay ama ku soo barbaarnay dhibaatooyinka ka taagan laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay in aan halkan ka arkayo dad badan oo ah walaalahay ama aan la soo koray ama qayb ka mid ah noloshayda oo aan mar kasta xasuusanahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin caawa waxay tahay maalin aad iyo aad u farxad badan anigoo jeclaa inaan caawa xamar dhex joogo anigoo idinkoo dhan idinla jooga laakiin insha Allah
haddii ilaahay raalli ka noqdo way dhici doontaa maraynu waddankeennii iyo xamar iyo stadium muqdisho aynu ku wada kulanno waxaan idinkula dardaarmayaa dhammaantiin in aad xiriirka sportska aad xoojisaan adduunkan insha allahu tacaala waa laga tegayaa waxaase lagaga tegayaa taariikh dhaxalgala maanta dadka waxaa isugu dhow soomaaliya dadkeenni sportska ahaa meel kasta aynu isugu tagno waxaynu nahay dad walaalo isla soo korray oo isgaranayna marka xidhiirkeenna waa inaynu adkaynaa waxqabadka sportskana waa inaynu ku baraarujirnaa dhallinyarada iyo ubadkeenna insha allahu tacaala runtii ma garanayo waxaan idinku abaalgudo laakiin waxaan ogaan doonaa inaan idin xasuusnaado insha allahu tacaala aad iyo aad ayaa umahadsantihiin thank you